بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك عدالة تليها عيدنك سلوبتا تلياشي هراء عيدا مدى وهراء تليه هراء عيدنك سلوبتا قارهان أبيه أساسي إسماعيل أحمد إسماعيل تليه جنرال بشير تليه هراء عيدنك حوق دلك الصوماليات تليه دار النغرشو قدومي كحقينada gobolka Banaadir xildhibaanada saraakiisha madaxda iyo dhammaan marti sharafta marka ugu horeysa waan idin salaamay intaas ka sokow dhammaan madaxda iyo taliyaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda iyo qoysaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idinkugu hambaleynayaa sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. waxaa sharaf ah maanta konton sano kadib weli in taariikhdeennii ay nooshahay uuna nala joogo taliyihii aasaasay ama aabbihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed. inteena isaga ku xigta daahan waxaan xasuusanaa iyadoo marna la yiraahdo asluubta ama la yiraahdo askargaal shiro ama la yiraahdo ciidanka anshaxa ama la yiraahdo ciidanka dhisidda akhlaaqda toosan ama la yiraahdo ciidanka daryeelka maxaabiista ciidanka bulsheynta dhaqan celinta ciidanka dhismaha iyo wax soo saarka ciidanka maamulidda xabsiyada dalka waxaa laga yaabaa in dad badan aanay aqoon u lahayn laakiin taariikhda ciidanka asluubta intaasna waa ay leedahay waxaa kaloo ay leedahay waqtigii annagu aan dhalinyarada ahayn gabdhuhu maanay ogolaan jirin in la guursado haddii aan qalabka looga soo iibin ciidanka asluubta Soomaaliyeed. konton sano kadib waxaan isugu nimid mar labaad dib u dhiska ciidanka asluubta ka sokow inaan isxasuusino taariikhda haddii aan dhalinyarada la xasuusin taariikhda waxaa ku adkaanaysaa inay jeexaan jidka mustaqbalka. ciidanka halkan jooga oo taliyaashu ugu horeeyaan waxay leeyihiin oo ay qabtaan shaqo aad u dhib badan. qof dambiile ah qofka loo keenay oo la rabo inuu toosiyo waa qof loo dhiibay bambo gaanjadii laga saaray. shaqada ay hayaan waxaa lagu qiyaasi karaa dhibkaas oo kale waayo waxaa laga rabaa in qofka dambiile ah marka loo keeno in sanooyin kadib ay bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo qofkaasi uu yahay aabbaha tabliiqa wanaagga. waxay ka shaqeeyaan oo laga rabaa in qofka isagoo nolosha ka dhacay marka loo keeno ay sanado kadib bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo xirfad leh oo rajo kale mustaqbalkiisa isagoo rajo leh oo u jeeda himilo iyo diilo. waxay ka shaqeeyaan in qofka loo keeno isagoo aqoontiisu liidato inay dib ugu soo celiyaan bulshada qofkii oo aqoon lehna awood uu wax ku soo saarto si aanu dambi kale u gelin. waxaa loo keenaa qofku isagoo isku caasiyey waalidkiisna ku caasiyey waxaa la rabaa inay bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo waalidkiisna u baari ah isaguna naftiisa u baari ah. sidaas daraaddeed ayaa la rabaa inaanay shaqadu soo laalaaban
وقفك مر لإيدين كانوا عن مركل لإيدين سؤالي وأتكجودتان واجب كدبتها بلشدنا عاد عاوسان قفكاسنا عاد عاوسان سيدو كلا أيها الربا قفك لإيدين كانوا والباب كالإيدين كجسو قليو إن أنو فرصة هلين إنه ضاقة كبوح idinka waxaad tihiin toosiyaashii dadkaas si aad u toosisaan marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in sheekha imaamka ahi aanu salaada duji karin cidna haddii aanu daahir ahayn idinkuna inaadan wax toosin karin haddii aadan idinku toosnayn si markaad wax u toosisaan waa in dib u habeynta halkan aad ka wadaan lagu bilaabo ama aad xoogga saartaan maadaama laydinka rabo inaad dad Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday noloshooda wax ka hagaajisaan hagaaga in halkan laga bilaabo si idinku tusaale aad ugu noqotaan sanadihii aan soo dhaafnay 3 sano waxay dawladdu ku mashquulsanayd in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha ciidamada iyo dawlad wanaag si shaqadiina ay u sahlanaato marka iyadoo la sii wadi doono dib u habeynta ciidamada lagu sameeyo anigoo u mahad celinaya taliyayaashii qaybta libaax ka qaatay oo halkan fadhiya General Bashir General Daahir ay ugu horeeyaan lana sii wadi doono dib u habeyntaas oo dhalisayna inay sahlanaato in askari walba uu xuquuqdiisa helo ama qof walba oo shaqaalaha dawladda ay 3 sano la soo dhaafay xuquuqdooda helaan waxaa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay ka soo kordhaysatii hore in cadaaladana dib u habeyn lagu sameeyo halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda sababtu waxay tahay haddii ciidamada iyo hay'adaha dawladda kaligood lagu sameeyo dib u habeyn oo hay'adihii cadaaladana dib u habeyn lagu sameeyo waxaa halka ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dawladeed oo aan isu dheelitirnayn sababtu waxay tahay geed walba jiridda uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah jiridda dawladnimaduna waa cadaaladda sida qofka bilaadanka uu hoy ugu baahan yahay uu hub ugu baahan yahay uu hunguri ugu baahan yahay uu caafimaad ugu baahan yahay ayay aasaas tahay cadaaladuna ciidankan halkan jooga shaqada ay hayaan marka ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladana shaqo weyn la gelin si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato waa inaan isla garanaa caqabadaha cadaaladda iyo dawladnimada inteeda badan hortaagan oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo qaraabakiilka laaluushka iyo marqaati beenta dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud dhaqankii Soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan Soomaaliyeed waa dad runlow ah waa dad aamin ah waa dad deeqsiin ah waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo si loogu soo celiyana ciidanka ayaa laga rabaa ama asluub ama military ama police inay iyagu noqdaan
albaabkii cadaaladda laga gelayo sababtoo ah dalka difaaciisa iyagaa ka shaqeeya badbaadinta ummadda iyagaa ka shaqeeya markii la kala ordo iyaga uunbaa taagan markii la kala cabsadana iyaga uunbaa loo soo ordaa sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay in ciidankeenna aan xoog gelinno ama ha ahaadaano military ama ha ahaadaano booliis ama ha ahaadaano asluub laakiin maadaama marka ugu dambaysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda sida aan dib u habeynta ugu sameynay arrimaha militariga iyo booliiska iyo dhaqaalaha iyo dawlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesano arrimaha cadaaladda sababtoo ah bulsho aan cadaalad helini midnimo ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna qabweyni ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna dhiiranaan ma heli karto bulsho aan cadaalad helinna dhexdeeda is-aaminaad kama imaan karo is-aaminaadna ma dhici karo haddii aan jirin ciidan horseed u ah mar labaad ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeeynayaa sanad guuradii ka soo wareegtay 50kii sano oo la aasaasay koor waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabihii Soomaaliyeed oo ku bixiyay xoog iyo waqti maantana nala jooga waxaa marka muhiim ah in qofka Soomaaliyeed oo soo dadaalay qof walba naga mid ugu yaraan uu muujiyo ixtiraamku mudan yahay. Wassalaamu calaykum warahmatullahi